إن رواية داس أذي لهان أنا قاعد يوتيوب كأوصف لي سرعة حتى ما قال ما يوتيوب كأوصف لي سرعة استغفر الله تسمع كفت كفتا ما هي لهان ولجيت كاجوا صاعد سنة ما تسمع واحد كرت أنا ومدي لي تلفون لوقا اللي يسوى ضوعد ما يدك لهان ولجيت كاله هذا ما هو تلاقي كعب صدا تقال كان هي مشكلة دين أنا هذيك وأنا يوتيوب ضد كان حد حنا قناة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبات كلنتو عنا وناكسن صاحبيال meel walba daafaca caalamka ka joogteen halkaad naga daawanaysan waa channelka Bilkhayr Axmed soo dhawaada ayaan leenahay saaxiibada hore ugu xidhnaa Bilkhayr waa ugu mahad celinaynaa saaxiibada cusubna waxaan leenahay fadlan channelka subscribe noo saar muuqaalka la gareeyo share galaa asxaabtaada mar kale kulan wacan wanaagsan annaga maalin bay noo tahay maalin wanaagsan baan hawada ka leenahay idinkana waqti kastoo idin tahay oo wanaagsan soo dhaw Bilkhayr هذا ما سنت يوسف أصحابتي ده وحنا ليه هاي معني وناكسن حلي كستويدين تاي أو وناكسن وعنا أدين رجينا يا إن جن الكيك وحنا ليه همل في عنا مرة سبسكرايب كيس لايك كيس شير كيس أنت وهرا يجوسي ولا أنت هرا يجوس عرفتنا وحنا ليه بقول كيب ولا بقول سده بقول أفر بقول إلا أنت بقول وجعشين وما علنا أنت نسوا مرنا يا إن لما أنت بقى سود وهذا جن الكيك مالمها وحكي سعد الرواية بوقي يبربلين كذا وضطو oo hogaaminaysay lajamada in xaaladaha aktarada fanaanadeena qof macnaha miisaan iyo mug ku leh bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogto walaashay Ilhaan Xarago oo hadda inaga tagtay riwaayadii marka dad badan ay soo weydiinayaan riwaayadii Bilkhayr ka socota janarkeeda horta hadii Ilhaan tagtay waa dareemi kartaan wax meeshaas qof weyn ka baxay macnaha boos muhiimna ay ku leeyahay Ilhaan in riwaayada qofkii dhan oo ortoroyda aan fikradeeda lahayn ay ahayd in hana ahaatee nin xaahatoy hooyadii dhan oo gabadha oo Bilkhayrna ay sodoh ka ahayd macnaha aad iyo ma fahansantahay ninkan oo ka ahay ninkii la burbursanaya macnaha lagu booda aniga laakiin gadaal ka soo noqonaa insha Allah aleed marka inaan naageena ka barabtaa gadaal gabadha inaad gacanta ku dhigtaa qasab gabadhan waan iskuursan doonaa asxaabay ana la wareegi doona saabac qul ku dhaqay أيوة كلا قولي يوسف إيمان أنا قولي عرفت ما لا ما قولي عرفته dadkena u sheegna waa waqti marka idin ka hor dhacay riwaayada oo si socota waa adigu hal xalqo ama laba xalqo wax badan ma dhimana riwaayada maadaama islaantii ay tagtay ingiriiska aaday Ilhaan oo ay laabatay riwaayadu waa gabagabo inta waxaan ugu tala galnay Ilhaan la joogto in dadkeena ugu madadaalino ugu faa'iideysano walaashay macnaha ma ahan riwaayad si socon karto maadaama gabadha ay wadanka nala joogin ma fahanteen adinkana waa dareemi kartiin hadduu Ilaahay idmo anagu waxaan jecelnahay si gooni inaan riwaayada kale u bilaawno oo taxana noo noqodoon hadduu Ilaahay idmo in kastoo culaysyo badan ay nasaariyiin oo anaga xoogay waxyaabo badan iska jiraan ma fahanteen soo dhow waa maasanta Bilkhayr sida Bilkhayr sheegtay horta anigu halkan aan aad baan uga salaameynaa Ilhaan runtii hadda ingiriiska nabadgelyo ma sha Allah iyada iyo teamkeedii Reeland baad baan u salaameynaa runtii riwaayadaasina say Bilkhayr idin sheegtay maadaama oo karakterka ugu weyn oo ay ahayd sodohda oo runtii wax dhibaysay oo gabadheeda nin lacag la rabtay oo nin aan lacag haysan oo faqiir u diidaneyd ay Ilhaan matalaysay Ilhaan way ka baxday riwaayadii maadaama ay laabatay inkasta oo gabagabada meel fiican ay uga tagtay ay ka tii karto ay soo gaarsiisay marka insha Allah riwaayad wax yar baa ka dhiman oo nuxurkii riwaayada halkii ku gabagabaysmaysay iyo macnaha meesha isku soo biirshubanaysay wiilkii gabadha misali doonaan masoo isweyn doonaan waa inta marka insha Allah waxaan rajaynaynaa intaana inaan idin soo dadajino dad badan baa komitiyada ka soo qoraya riwaayada ayaan la gabagabaynin laakiin haddii ay noqoto inaan waji kale u yeelo la sii wadi karno waan sii wadaynaa haddii ay noqoto in halkii aan marka hore ugu talagalay aan ku gabagabaynina waxaan rajaynaynaa inaan idin bilowno riwaayado kale oo idin xiiso geliya oo runtii sida kuwa hadda tana daawanaysa in wacyiga hadda jira ee dadka Soomaaliyeed dhexdooda ka dhaca ka turjumaysay kuwa sidaas oo kale oo iyaguna ka turjuma ayaan insha Allah bidnaa kale idin wadaagi doonaa mar kale waan idin mahad celinayaa saaxiibada ku xidhan channelka Bilkhayr Axmed meel fiican buu channelka Bilkhayr Axmed maraya awaarkeedii 100,000 waa soo socdaa insha Allah haddii Allah u daliidmo aniguna waan ka daba tukubayo wax yar baan u jiraa adiga laakiin Yusuf kugu adkeen asxaabtaada aniga igu adkeeyeen ruufiyaanimada macnaha qaybta ruufiyaanimada igu adkeeyeen laakiin insha Allah waan gaari doonaa Yusuf caawa inuu 100,000 kun gaaraa oo subscribe-ka waxa ugu dhiman 2,000 meelahaas ka dhiman ugu dhiman marka asxaabtana waxaan leenahay horta hore xoogaa anigu ayantan sodoh wareersana iska ahay
ruufyaanimadana waa ku fiicnaay markii Yuusuf gaarsiiyay 100,000 kun oo xataa subscribe-ka waxaas wax ka badan baadinka naga soo dhigay macnaha in ilaahay ka soko wax kasta oo wanaaga oo noo suurta galay ilaahay aan uga mahad celinayna wixii xumaan oo inaga dhacana ilaahay aan dib ka weydiisanayna in midda markaan kasoo tagno dadkeena sida wanaagsan oo gacmaha furan oo akhlaaqda iyo qiimaha iyo qaayaha ku jirto inoo dhiirigeliyaan waxaan leeyahay Soomaalidu baa laga helaa dadkooda waaniyo marna ka careysi macnaha marna ka careysi marna Soomaalidu baa laga helaa nolol dhaqataan waa si aad wanaagsan waan idinka mahad celinayna aan idinka mahad celinayna dabcan sida bilkhayr sheegtay waxaan rajeynayaa 100,000 kun inaan insha Allah dhaqso u gaaro dabcan hadii ay suurta gashana sida ay xaajiyadu sheegtay caaw 100,000 kun lagu tuuro waxaan rajeynayaa insha Allah labada award inaan hal mar u wada dabaaldegno aad iyo aad hal xaflad aan halkan idinku qabanno 20 kun qolkan dhaxdiisa macnaa aan xaflad ugu qabanaa ani badan ma banaa no adinku waxaad soo go'aamisan xafladda hadii Yuusuf oo 100 kun oo subscribe gaaro iyo kii horkeyga horeeto qolkan dhaxdiisa xafladda idinku dhigaa mase banaankiisaan ku dhigaa dabcan iyaga marka commentiga aniga waxaan ahaan fikradeyda waxay tahay in qolka dhaxdiisa ku dhigto ana okay ana dadkan sugaya banaanka tiradaha labada inoo kala codeynayeen banaanka iyo qolka okay hay waa si wanaagsan saaxiibayaal oo maasantiin horta aad baan ugu mahad celinayaa 98 kun oo qof oo dadka Soomaaliyeed ayaa channelkayga ku xidhan ma sha Allah waan idinka mahad celinayaa 100% 98 kun oo qof ee channelkayga soo raacay macna la'aan ma soo raacin dabcan bilkhayrna 110 kun dad ku dhow baa ku xidhan channelkayga iyaguna runtii waxba isma dheerin macnaa horta hore waa isku dad ani dadka ani ila joogana Yuusuf ila joogan dadkiisa ila joogana ani ila joogan dhamaantiin horta dadka ummadda Soomaaliyeed 100% wax aan meeshan mahad celino uga diro oo ilaahay abuurtay ma qiyaas karo fahansantaa marka waxaan leeyahay horta ilaahay dhamaanteen khayrka nagu wada sugo wanaagana Allah nagu hay'atay toosiyo ilaahay wax toosi kare in aad u mahadsantiin 100% commentiyada aniga waxaan jeclahay Yuusuf hadii commentiga hal caaya lagu soo qoro ilaas ka qaba waa iska ooyay aniga waxa iska dhaleys kale ka jirta laakiin marka qaranka markay dad la caayo comment lagu caaya arkeen maxay ayaga social media laakiin wax xun waaya markii lagu amaano dhiirigelin ku noqonay markii lagu caayna ay xaaladuhu jeexjeexeen la kadib markay xaalado jaxjaxeen saas daadiga ama commentiga lagu jaxjaxay commentiga hadii lagu jaxjaxo mushkilada ka jirto aad ninkaas sheegay marka commentiga nagu jaxjaxinina nagu maana jaxjaxi jirni dadka kale oo Soomaaliyeed ayagana la jaxjaxayna ma fiicna iska dhaaf qofka waani kartiin waaniya qofka waani weysiina Soomaalidu waxay tiraahdaa waana abuursa koreysi waano abuursa koreysi qof kasta oo wanaagsan ilaahay oo abuuro wanaaga qof kasta oo xumaan ku socotana duco baan ku leenahay iyo inaan waanina bas ba inta u dhaafisid qofka hadaa si caysid qofka meel xun u aadaya waarun uu si fogaanaa marka aad si caysid uu si fogaanaa qof kasta oo muslim xaq wuxuu walaalka ku leeyahay inaa waanisa inaa u dhimrisaa wanaaga aad u sheegtaa waxaan waxun inay yihiin hada fiiri hada taya lacala dadka social media ku jiro oo xun ma marka qaar hadal wanaag markii loo qoro way soo qaataan aniga hadii saas la is siro ay ku leeyihiin ayagoo og inay dambi ku jiraan hadana waxay jecel in la siro fahantiin marka walaalayaal ilmaha yariiska xataa sirada u baahan anu yariiska hal dhashtay qayla xataa ma kaaga yeelaa in loo tartiibiyo marka anaga waxaan leenahay isku tartiibino ya oo gobonimada halkaas ku jirtaa markan wax badan jeexjeexnay anaga waxa inoo soo baxday social media in lagu waashto iska yareeya waliba aaladaha lagu waashto waa TikTok kooka ah iska yareeya ya sidoo kale YouTube-ka dadka sida waalida u isticmaalay xataa waa lagu waashtaa ani xaqiiq wallahi waxa ii soo baxday social media waa lagu waashtaa maanta qofkan social media joogin ilaahay ka maangalo sababtoo stress uu leeyahay dadka stress ku furaa qof yoga waxa arkay marka hore si caadi u soo galo toosan ما وحير كدي بحا أركز قفكي أو دبديستي دبديست متقنادي شانتار ربنا سيدي بدون اللي قف ما يقف دبديست متقنادي دبديست معاه جيل أنا وقعنا دبديست الله ربيلا أنا كل جانا رميالي أنا مسكين يعني سيدا مركز جيل أو كلا دوتكو يسألوا دبديسانين هادي بديسانين
walaalayaal oo tartiib anaga noo soo duceeyo inuu ilaahay naxasiliya adinkuna waa idin soo duceeyna isku duceeyno xaqa suuq leena qof qoraalka oo muslimka ina u duceysid anoo ku duceeya ma fahansantahay marka aad u maasantiin waxaan idin leeyahay riwaayadaha oo buuqooda iyo problemkooda wato oo Yusuf markaan naago ku daba socdo Yusuf mar dambeeto naag riwaayad xaaskayga iyo jaceelkayga kula keeni karta never hadda aan diyaarinaybo aan wadaa oo iska ilow aniga ilaa iyo hada iyo muddo waxay daba socaysaa naag inaan bursadama daba socayso waxaas aniga umada ilaahay waa iga digtay inta ugu badan Soomaalida dad gabdhuhu dhan waxay leeyihiin qariijo horta gabdhuhu iyagu way fiican yihiin oo waxay kaaga digayaan wax kale ma aha waa dumar xaaladda meel kale keegayaan marka anagu markaan xaaladuna jexjeexeen riwaayad kale soo wadnaa marka xaaladdu ku jexjeexeen waxa hartaamiya inaad xarag waxay deeyay arun u moodid oo sheeg naagtaada waan u sheegay hadda indhaha in ugu tufaya lacala ma xasal soo istaagta ma ila waxa ay dhacdo waa sax wallahi inay sadhici karin joog horta joogis waxaas dhici maaya hadda horta wax ma dhicin laakiin dagaalka jooji dagaal sideedaba ma fiicna talabaad riwaayadahan markaan duubaya taa ay soo dhex galayso qaladaadka hadda markay soo galiyay shalay dadku ay yaabeen ataa ay soo dhex taf leedahay hadda waxaaba day hadda ani adiga ma soo fadhina waa inay hadda ani adiga waa kana hadda ani adiga deewaan anagoo hadana xaasi ah oo nin inaag ah isqaba ah laakiin riwaayadaas adii lahan aniga tan YouTube-ka u soo fadhiisara hadda ma qab ma YouTube-ka u soo fadhiisara taas waa kaftan ma hayso ilhan ulajeedkaaga waa soo cadeysanay ما تسمع واحد كربت انا ومدي لي تليفون لوقا اللي سو وضعي ما ددك الى ان وجدك على هذا ما هو تلاقي كعبسده دغال كان مشكله انا اديق وانا يوتيوب ددك دحدحان نغنا قناay خير waa taqaanaan hadaa wax si wadoodaana hawsheeda hore ka sii qaadanaysa marka arinka halka maya hadalka halkaas ku xiraa Yusuf wax bisarna ani ilaahan waxarna dhowr su'aalood inaan isweydiino waxa telefoonka caadiga WhatsApp iska weydiin maya YouTube-ka maya WhatsApp dadku waxay arkeen dadka la hortooda lagu cadeeyo ما saaxiibayaal waa mahadsantihiin insha Allah bin ilaah alkariim wuxuu diiday marqaatin ka tiin hadoosan wax diidaneen ha ogolaa inaan hortiina kula hadlaa ma ilaaha waxaad kula hadlaysaa WhatsApp kula hadli ma jooji aniga ma qabarto jooji waa mahadsantii saaxiibayaal insha Allah bin ilaah alkariim warbixinta aqoon baan runay inaan idin la wadaagno dabcan riwaayada halkay marayso riwaayadaha kale bilaami doona waxaan rajeynayaa si aad noogu xidhnaadeen si ka wanaagsan aad noogu xidhaan doontiin كين بالخير أو المانتي شنو كودي لتشوفه عليه وأنا سلامية شرف بهالذين قوليستا أنيقا يحاكيتا oo warku inoo furan yahay YouTube-kana noo balana waxaan kaga tagaynaa ilhaan iyo aniga oo idin soo wada fadhiisana assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh